أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalahayga ku xiran aad iyo aad baan idin salaamaya. waxaan ilaa ciid mubaarak, kula caam wa antum bikhayr. ilaa ciideedina bashbashiyo barwaaqo insha Allah dhammaantiin inuu wada gaarsiiyo. waxaan aad uga cudur daaranayaa programyadii aan ku ballan qaaday ramadaanta inaan soo gudbiyo oon soo gudbin wax yar mooyaane taasoo waqti ii saamix waayay. aad ayaan uga cudur daaranayaa, iga raali ahaada. insha Allahna waan soo gudbinayaa oona soo gelinayaa insha Allah. intaa kadib waxaan jecelahay erayada yara kooban inaan ka iraahdo haweenka Soomaaliyeed in ka mid ka ahay almar'atul xadiidiya. haddii aad maqashid ama haweeneyda birta ah, runtii aan waxaan ka dhaxarkaa haweenka Soomaalida maasha Allah waa haween aad iyo aad u karti badan, u adag, duruuf walba iyo dhibaato walba timaado waa dumar u yani dhabar adayga. bulshada Soomaaliyeed intooda badan runtii waxaa jira xataa haween labada shaqo ee labadii kaalin ee hooyo aabahaba isku qaatay oo haddana sideeda uga soo baxay ayaa jirta. ma aha hooyo la jebin karo maaha inta badan, ama la niyad jebin karo, waa mid mar walba haree u socota. runtii way ka duwan tahay haweenka adduunkan ku aragnay, waayo maadaama ay bulshada Soomaaliyeed ahayd bulsho inta badan dagaalo la soo tacaalaysa oo dhibaatooyin badan ay soo mareen. adayga iyo kartida ay dumarka Soomaalidu muujiyeen waa mid maasha Allah yani unimaginable. aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay ka tirsanay haweenka Soomaaliyeed. meel walba joogaan adduunka waxaa leeyahay Allah ina xafido si gaara. runtii dhibaatadu rag iyo dumarba waa la soo wada wajahay, laakiin anu si gaara waxaan u sheegay haweenka Soomaaliyeed ee aadka u adag almar'atul xadiidiya banaan u bixiyay. ilaahay meel kasta joogteen nagu xafido, intiina geeriyootay, hooyooyinkeena, hooyadii ugu horeysay, dhammaan hooyinka Soomaalida, kuwa islaamka oo dhanba ilaahay ha u naxariista ayaan leeyahay. dhammaan yar iyo weyn intii naga horeysay geeriyootay, inta noolna waxaan leeyahay wanaag iyo caafimaad iyo cibaado suban ku noolaada intii nolol jirto insha Allah. ayaan salaamayntahay reerkooda maanta jeclay inaan la soo wadaago video kale soo wadaa insha Allah. la socod wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.